Assalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka. Halkan waxaan rabaa inaan idinkugu sheego muhiimadda ay leedahay inaan ilmaheena banaanka kusoo ciyaarsiino ama meelaha greenka, meelaha xadiiqooyinka, meelaha playgroundka inaan geyno muhiimadda ay leedahay, okay? Maxaa ognahay mar walba banaanka tagno, hawo fiican aan soo qaadano, maskaxdeena way u wanaagsan tahay, jirkeena way u wanaagsan tahay, stresskana way naga ridaysaa. Marka ilmahana waa sidii oo kale. Ilmaha damoor ay helaan fresh air, iyagana ay helaan exercise ay u tahay. Mar walba aragta ilmahaga banaanka ciyaaraya, jirkoodii dhaqdhaqaaqaya, waxaan ku leeyahay maskaxdoodii fiicnaanaysa, happy ay dareemayaan, okay? So maxaa la ogaaday? Research maxaan ka ogaanay? Ilmaha ku ciyaara banaanka waa ilmo ka degan ilmahana banaanka ku ciyaarin. Ilmaha ku ciyaara banaanka waa ilmo ka faraxsan ilmaha kale oo banaanka ku ciyaarin. Moodkooda ama mataqaana farxadooda ku jirta inay banaanka ku ciyaaraan. Ilmahaas depression iyo low mood iyo kuma dhacdo insha Allah. Maxaa kale ilmaha banaanka ku ciyaara way ka caafimaad badan yihiin ilmahana banaanka ku ciyaarin, especially ilmaha banaanka ku ciyaara vitamin D ay helaan, okay? Vitamin D markii aad heshid jirkaaga farxadaada qoraxdaas farxad ka dhigaysa. Marka u ogolaaw ilmahaaga in badan banaanka geey. Midda kale oo xigta ilmahaaga markaa banaanka geysid waxay noqonayaan ilmo active ah jir ahaan, marka overweight ma noqonayaan ama ma cayilayaan because cuntadii aad soo siido wayba ka baxaysaa banaanka markay yimaadaan. Marka waxay ka protect garanaysaa ama waxay ka hor imaanaysaa moor ilmahaaga banaanka geedo waa moor ay ka badbaadaan inay ku dhacdo jirooyinka sida sokorta oo kale, sida asmada oo kale, waxyaabahaas oo kale, okay? Midda kale ilmaha banaanka ku ciyaara way ka indha fiican yihiin, indhaha aragtidooda way ka fiican tahay dan ilmahana banaanka ku ciyaarin. Maxaana ka mid ah ilmaha banaanka ku ciyaara vitamin D ya jirkooda si fiican u noqonaysaa, therefore indhahoodii aragtidooda way u wanaagsananaysaa. Laba kale ay dhiman ilmaha banaanka ku ciyaara moor greenkii xadiiqooyinka la geeya maxaa la ogaaday inay yihiin better students, inay yihiin ilma waxbarashada ku wanaagsanaada because concentrationkooda fiican, because banaanka ku ciyaareen concentrationkooda uu ka fiican yahay ilmahana banaanka ku ciyaarin. Maskaxdooda oxygen fiican ay qaadatay, hawo fiican ay maskaxdooda qaadatay. Okay, midda ugu dambeeyay ilmaha banaanka ku ciyaara, ilmaha xadiiqooyinka la geeya waxyaabay uga wanaagsan ilmaha kale waxaa waaye more creative. Ilmahaas technology uma baahna, TV uma baahna inay wax ka fahmaan, imaginationskooda ku filan, maskaxdooda ku filan, okay? So waxaasoo dhan ma rabtaa ilmahaaga inaad u diido ama aadan siinin waa maya. So ilmahaaga banaanka geey more than 30 daqiiqo maalinta ilmahaaga banaanka geey maalin walba. Haddii aadan maalin walba geyn karin 5 maalin 7 maalin kamida banaanka geey insha Allah. Inta kalena insha Allah videoyo kale oo TikTok aan soo dhigana soo daawada waxyaabaha aad la samayn karto markii aadan banaanka geyneynin. Mar walba waxaa muhiim ku ah ilmahaaga maskaxdooda iyo horumarkooda iyo kobcinta maskaxdooda waxaa ku jirta inayna TV daawanin. Waxyaabaha marka adiga ka badbaadaysid inaadan TV u daarin waxaa waaye inaad banaanka geedo. Insha Allah waxaan rajaynayaa videoga ka faa'iideen. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe taa naga ilaawin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.